بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxaynu bilaabinaynaa xafladeennii laakiin se intaynaan bilaabanin sidii caadada ahayd insha allahu tacaala waxaynu ku bilaabi doonaa aayado qur-aan ah waa inoo akhriyi doono Mustafa Shine. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. وهي xafladeennii baynu hore ugu sii socon doonaa waxaynu bilaaban doonaa maamuuskeenii inagoo ku soo dhaweynayna madaxda xisbiga wadani ee laanta Faransiiska oo kelmado kooban ina oran doona. waxaan ugu horeysiinayaa imika ku soo dhaweynayaa Sahra Ismaaciil Dawaare oo ku hadlaysa garabka haweenka ee laanta Faransiiska. ku soo dhaw Sahra. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دمان وعليكم السلام يا مرتدى كسو قيب كشيء بدشنا يستويني كل سنة يقولها وجاري حسبينو كقوبان كغيرياشا حسب جوردني المدحريسة لانتا فرانسيسكا وحنا الله هيسول وهذا وحنا هنبريه ودرينا دمانتين وشا أينو جارني حسبينا معارضكم doorashooyinka ay ka gaadheen doorashooyinkii noo qabsoomay ilaahayna ma hadda u horeysana waxa la ilaahay talabaadna waxa la shidkeeni sida fiican u codeeyay ta saddexaadna waxa la dawladeennii sida habsamida ah u qabatay ee nabadda iyo sharafta weer ku sugnay iyo mudanayaashii aynu dooranay ayaa leh waxaan hambalyo kale u dirayaa isku bahaysigii labada xisbi bimacaaris bahaysteen waxaan leeyahay guul baan idin rajaynayna dhammaantiin bulshada reer Somaliland dhammaantood hadalkan waxaan sii siin doonaa madaxda kale ee xisbiga laanta Faransiiska. aad baan idin way mahadsantahay Sahra Ismaaciil Dawaare. waxaan sidoo kale imika ku soo dhaweyn doonaa oo isaguna ereygiisa oran doona afhayeenka laanta Faransiiska جمال عبد إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. gudahaan madaxweynaha reer Somaliland iyo bahweynta qaranka mideeyo gaar ahaan xisbiga wadani xisbiga rajada shacabka maanta halkan sidii ay madaxdii ugu horeysay ka warbixisay waxaan isugu nimi dabaaldega guulihii taariikhiga ahaa ee uu xisbigani ka soo horeeyay doorashooyinkii sidkanaama ah ee waa lamaana xagga af Soomaaliga ee deegaanka iyo wakiilada oo aynu si runtii taariikhda naadir ku ah ugu guuleysanay jeer kalena isbahaysiga asxaabta mucaaradka wankii weynaa wuu wareera wax badanna wuu isku dayey balse way u socon weyday hilinka iyo hiigsiga uu xisbigani hilaadinayaana waa ku cad oo aan cadceed aan sacab lagu qarin karaynin sidii uu hoggaanka xisbigu sheegay waa markii koowaad ee taariikhda Soomaalida maaha Somaliland ay soo baxaan mas'uuliyiin iyo xildhibaano xilal qabta oo aanay xafidahooda dooranin. waa markii koowaad ee cod aqlabiyada ay shucuubtu hadasho dareenku hadlo isla markaana hilowga ay dadkani u qabaan wixii ay 1990kii burco kaga dhawaaqeen inay hirgeliyaan sinaan cadaalad iyo noloshii ay haybinayeen oo aad moodeen xoog loola meeraystay. ereygan rajada shacabku ma aha un wax meesha la iska geliyay waxaa hubaala in maanta rajadii shacabku ay lahaayeen ay muuqato. raggii hore waxay odhan jireen in yar baa hadhaya hinjiyay mid dardaarana baan ku larayaa waa laga warwareegayay markaas
xisbigu marka uu mucaarad yahay uu doonayo in uu la tartamo xisbi muxaafada oo aydun ogtihiin nidaamkeedu siduu yahay oo weliba ay tahay wax aanay fagaarayaasha kala xishoonin oo aydun arkayseen inuu maxamuud xaashi golo cad ka lahaa lacagtii dawladdaanu ku ololayna dee waxaynu la tartamaynaa waxa weeyaan waa shirkadaynu la tartamaynaa waxaynu la tartamaynaa dhiil baa lala sii gelayaa ninka madaxweynaha ah ganacsatadu lacag bay bixinaysaa dawladdu lacag bay bixinaysaa qalabkii dawladda lagu ololeynaya culayska noocaasina wuxuu saarayay mucaaradka raba inuu isbeddel sameeyo taageerayaasheena sharafka badan leh waxaan mar kale ku boorinayaa in aydun isku xidhnaataan inaydun hurtaan intiini awoodaan waxa yaree faraguudkooda ah amase qaaraanka xisbiga laantan faransiiska oo aan xogogaal u ahaa raggii halkan ka aasaasay caawa maanta waxaa nasiib wanaag ah inuu nagala joogo rag badan oo cabdirasaaq oo guddoomiyaha ka mid yahay raggii laanta aasaasay mar kale wareejiyey maaha inuu aasaasay wala laantiyo sidii u dhisan jeer kalena uu maanta guddoomiyihii garbar taagan yahay oo ay sidaa qoraysudiib u ahayd soconna doonto kulankeennan iyo mid kale oo aynu qabsan doonno haddii eedaba xukmayo bilaha soo socda oo kan ka ballaadhanina waa uun dogobo la saarayo dabkaasi hore loo shiday waxaan leeyahay kulmiye waddani guul somaliland guul kulmiye mid baan kula kaftamayaa kulmiye mid baan kula kaftamayaayo horta saarka naga xidhaanu nidhi marka ay doorashadu dhammaato faquna wuu fara badan yahay halkii ugu halisnayd wixii uu lahaa ninkii gurtida ku jiray star war halkii ugu khatarsanaabaa la marayaa in yar baa hadhay magaaladii weyneyd ee dalkan caasimadda u ahayd meerkeedii waa haynaa iyo 4 magaalo oo kale oo waaweyn berbero oo in yar nagaga baxsatay baa ina dhaaftay waxa ay nimanka sugnaano waa inaynu baarlamaanka hogaamino marka anugu ilaa imika waxaan garan lahay sida ay doorashada madaxtooyada inoola tartami doonaan insha allah waynu guulaysanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wuu mahadsan yahay afhayeenka laanta faransiiska ee xisbiga waddani jamaal cabdi ibraahim waxaan sidoo kale kusoo dhaweynayaa ismaaciil qorsheel oo ah madaxa abaabulka iyo wacyigelinta ee laanta faransiiska السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وانا السلام يا وحنا السلام يا سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعدي هذا المرة جيو ومسؤولينتي يدك هوكا كايو ريبا يلي درين كينو مقدارنا إنه نكفر علينا وشو ويندين قارني حسبي ده معارض كاي قارين إلا ما عرفت هاي إلا ما مغلط هاي تاسع سكان كانتي سيدو كلا قدر كلا بروح وها بدون ككوب بحلا يلا كبعي وضد كلام وضح حيري والله وقفنا إسلامتين وديري ما أنت الحمد لله رب العالمين إن نمتين نسونمي تدال يو وقت بدنا نقوليني أيها الصلاة قال في الموسم من ودكتين إلا يسوي ما دعوا أكيد لا وقف الصلاة إذا أنت لا يسوي ما دانا ومن عليس كذا أنت وحن قدر يا مثلا هذا الخير هذا وش ذلك كان عليه توي أذكت هاي دولة الأفريقيان اللي جاب بوليس لكن واحد صبابي بس في معارض كا ودلالي يشعب كينا وديجو ذي ينفتو ذا يمال كذا بوقي واحد شيء تي تجاهل ومختير المقاطعة أوان كوينا لورنتي أفقلوا إن بدن وكبدن كنت سنة مدقال بتشيل مرسيو لها وحكم ده هاي إن بدن بن إله لها نوي في من نوره إن بدن بن عليه الكوبر تجي آدو ذاكري إن بدن بن الباب بدأ تمو صور ضيري إن بدن بن سيدي قرت الجيل قول لي إيش هاي شيء كاسم كوش وها وقبل داري تمر كي جميستوسي بحي درين كانوا كلا إن بدن بحس بجو معارك ودني وأردي ولولي هذا الغرب يولب ويلي ما أنت مريدي بن عني قيبه يجوري وحكم له ومبتشاء إنه الله عجب تمين دون تا حق درو يوم هاي توي دول مهم بدن عيد السنين عجب تاسو ودي دونه الله شرفه برخد أو إنك بدن لبعضكم وعد السي وحين نهرو مقال
ووحنا هرو أرق ووحنا دد بدن رجيني ووحنا كلمية وقولين أما سأنو حتى كل يوم في معلومات بالغة هي معلومات كم أرق لكن وين الرومين كريم موجس نكمل oo u tagay doonayeen marka hore inuu ay suuro gal macnaha doonayeen inuu iska sharxo laakiin ay u diideen taasoo macnaha dareenkooda muujinayeen ama aqligooda ay fikirayeen ma soo bixi karo laakiin waxay sababtay in 25 iyo dad ka sii badan inay u codayaan waa dad heer Somaliland su'aalo kale dib waxaan la filanay guulahaas waxaynu ku sii wadi karaa inagoo sidii ku sii wado waxaan doonayaa inaan hal eray raahdo xukuumadaha Afrika ka taliya hadday muddo joogan waxay bartaan kelmad leeyahay lih ereygaas waa kule ahayba ana iska kaali hantideeda ka mid haddii aynan isbedel la iman waxa dhici doonta in dhammaanteen la yiraahdo lih waa dhaqan ma aha aan oran karo madaxweynaha Soomaaliland bay dhaqankiisa tahay xukuumaddiisa tahay laakiin waa dhaqan Afrikaanka ku afro isbedel baynu baahnay intii dalkii isbedel ku ka dhacay hadday noqoto gobolada hadday noqoto degmooyinka isbedel kastoo dhacaa wuxuu ummadda u keenay wanaag iyo sharaf ما يهدي بدر بابا إنه خرسيدي برلمان كن كرتشينينا أنه وضع سي هاينا أيام شعب السومالان ويوجوه رئيسين تنهال كانوا يسكنني من أنفراد تاسي حسب جارة دين يومشرت الشخص جارة دين يومشرت لكن السومالان ودم بيدين يومشرت السومالي ودم بيدين يومشرت إسبدل القوة عافماتك ضدك أفريكان كا السومالي دين جارهان بندين سلامية ونسود وينيا أنت نهار رسوبتمي جوشي مكانين وان كهم بلينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تسيا حكايها باب الكيو عيقلينتا حسب الوطني لانتا فرانسيسكا حضنا وحا كسر دوين دونا قيب كميدا وضياش حسبك يو مستنباتك او وقهر يو وضي أحمد حسين كسر دو فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودنا هنورا. هنورا. فقط في زيادة بريدة سو قالوا فرق الهضم. هنورا هذا اللي بيلعب يشتري أنا ولد كويني بعد. وأنا كلمة مو عندي. أفضل صار هذا ما حصل هذا. وكلمة عرض ويد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكوح كان الله يعلم بس وياش مقالة وياش حسبها. مدرب ضدك بواه النقل شري قلنا إني أسلم تاني ورا. إيه أنت كذا مش عارفين. قلت كلمة ده كلمة أنت والله حناقة. وركورت عنه بحسب كلام. كذا مش عارفين مدرب. يمشوا لك كمان خسارة. ما أنا هاي خسارة. وأيو واحد يسوي شو من ده لا يو. إيه يربون يوري حسبه. الفرد كانوا كرمية وركراي. أيوة ده سكاحر. معارض كنا هذا قفك معارض كي يعني. برعاد الواحد كان شري بس بعد قال شرو والله كورا يقبض كورا والله يقبض أيوة كل مين أنا شري دبر معارض كا إنه يذوب ده يسلك الجريني معارض ما ضوان حنا بربران تشوف شري مرنا برا مرة أنت تنبه مرة قياسي معارض ما كلامي والله بيش شيء ما يضط قبل البلد وقمش هكاية معارض ما ضي حتى معارض ما نظيفة وضدكوا مديفين هاي وضدكوا قلال هاي يعني ده واحد كجرتها تيجي مو مركز عندي يسمى نيك اللي هذا حصل الشيخ من الحين كان شيء صوماليا نيك حصل الشيخ اللي هذا أيوة أيوة سوماليا كان هي ترشود عليه اللي يستمر مرة أيوة سوماليا من دير نروح كقال نقابل نعرف تبيوي حسبي دولة معارض كلاكيل وحصوها محلول ودور الشر ولا أكثر هذا حصل شخص ما يفهم مركب عنو كذا أبي هذا كله تكني يسبقا دليرا وأكرم كلك فريا دليرو بديه وحن يقول الدار ميا سيني كاس شيء جاي فياك هاي أول هذا بين سويس كل مية مرة سكتي مرة أيوب سكتي وده أكيد وانو بدرو يعني ده مركب كبر النوع كده بس بيد معارض كبر كده المجال ما كبر النوع marka maanta wadada kulmiye oo dagaalamaya waxa la yiri qoro barista iyo Soomaalida hore marka samid saano fulaada la tira waxa la yiri baldimankaas intii joogaan soo eeg intii wallahi wax yar bay ahaay marka si nimanka leeyahay wax yar bay ahaay intay qolada baa nus qolada Suudaan kala qolada ay wax yar bay ahaay meel filiye yaani kulmiye oo dee la yar dhacay mar dhaweyto
ودقالمي مركب حالي لو باهي لعقتي هو هيستا لعقتي دولته هيستا لعقتي عشان إنك استو عشوري دايما كرر ولا كسر قبتين قلت دولته هو سا حاجة قالوا حبك هيلي لكن ده مدقالمي نيجي مركب لقيته نيجي مركب ده عاون تشوف دي أمام كوكاضو أمام ميركا كسوريجو دي ناس كده قاعد يسمع دي كم يوم تدقال كو وينين يجوا هذا مركب قربها حسبي أنت عشور مقاضو عشور مقاضو ودك كم مقاضو سيدي دبري وربعين وين إنك هتدو عشور ودك نور النفطور لعك جديد أو شوي دوداي أو لو بدنا كلا شراء إن شاء الله يد وحنا السلام يوضني ملك تجواني إنتين لو السلام يا أنا لحقت ربي حنو قاران كان سكب حنو النور لو قروات كركر صار سكب حنو مقاول فضا وحنا مكوعن إنك هتدو بلغ بس سكب حنو إنك وحيا سنة كي مرة سرعة سما لحد بلغ مرة سكب حنو ويدوين والله شقيس أنا الرجل بدن كسر فرنا والله شقيستا مرة يحسوا كبيرين يعني وحنا كسرها يعني كان كيف في السرية لأنه أبي عمو صحيح هاي لي كان لي هذا إنه موجي أحمد دير الدوام برسا حاجة ويا قاعد لا ينحرج الناس سيبه في السوق العالم نكاس شرفته وصبح حياة بي بلها إلى وي ما يبي بلا أحمد طرالي إن شرف الله أحمد نوري أو وي تاريخ صار موجي لو نشوف ريبر عبر جوران تروح كاس هذا ما قرأته يعني سيسوي ولا هيك موجي وضروري نقول سوا ما كان عنده ودونا كسر السكرية وانو بارجيا سجين كبر لي هذا إسبيجينا نتاك صباح إسبيجينا دبي تكعد بدين رمضان سماعة كمية ما هذه لا هي ويقول له رمضان نقول سلامنا جوال والسلامية وعكروا قدر داريا يقدميها يقدي لا على شقينا عن قدي لا يقدمي على شقينا دمر بدن بينو شوجا إن بدن بينو شوجا دمر قهورليين رجعورليين قف بقف درا قف بقف الله درا وقف كان كريو ده قف كان لما كان يغير ليمك العقل اللي يروح ولا مرت اللي يروح ما مقشي انترنت العقل بقول لك طلع درا لي صدق عفوا كنت العقل هذا هذا ما مقشي قف هو وطنيا قف هو كان هو قف حي السلام عليكم ومعتي هاي أولي أحمد يوسف علمي waxaa kaloo aan isagana ku soo dhaweyn doonaa oday ka mid ah odayaasha xisbiga dayib xuseen diiriye ku soo dhawow baan leeyahay bismillah allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sahbihi wa sallam wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din allahumma waffiqni liman tuhibbu wa tarda assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhammaan waan idin salaamayaa حفلة روح رمضان اللي سوا قاسمي عدي سوا قاسمتي وحين الليل هاي جزاكم الله خيرا لهي ميسان حسنات كايدو كبرو وحوال أكسب لك شقية وحين بارغينا وسود وينينا كوشي تاريخي هاي إيه وقاري حسبي وطني ووحل غفانو waa wax loo baarigo oo qofka uu shaqo wanaagsan qabto ama ummaddu ay shaqo wanaagsan qabtaan waa loo mahad celiyaa marka waxaynu leenahay waa guushaas aynu inaguna la qaybsanaynaa haddii aynu guul gaadhay dee inaynu seexano maaha oo inaana guul baynu gaadhay malaa wixiiba waynu helnay oo dadku dee iska fadhiistaan waxaa la yidhi berigii hore magaaladan Hargeysa baabuurtan isbiidhada badan may hayn 2 iyo 3 isbiidh bay lahaan jireen marka waxaa la yidhi buurtan maxaa la yidhaha airportka qarax baa la yidhaha baa la yidhi dabeedna waxaa la yidhi halkaasay ka bixi jireenoo gaadhigu markuu halkaa maraayo dib buu carari jiray dabeedna waxaa loola jiray dadka ka dega dabeedna dadku way lugan jireen intuu buurtaa ka baxayo dabeedna odaybaa wuxuu yidhi waxaa la yidhi mar qaraxna may sugaysaa ile waa buurtii dheerayda markaa horta dee doorashadan ama doorashooyinkan maanta la qabtay dee kuwa ka xoog badan ayaa inoo hadhay oo tii madaxweynaha iyo tii guurtida iyo dee qaar kale aynagu soo socda inaynu hubka sii adkaysano oo tamarta sii xidhanno oo contributionka bixinno oo taageerayaashu ay ku hamiyaan halka aynu higsanayno ilaa aynu gaadhno
dee waa waxa laynaga sugaayo. midda kaleeto mucaaradku marka la yidhaahdo xisbi mucaarada weeyaan dee ma aha xisbigu mid dalka la hadhaaya. xisbigu waxa la yidhi wuxuu arkaa dhaliilaha ay dawladdu leeday. qaar baa waxay yidhahdaan tooshkii siyaasadanu sida. xisbigu wuxuu arkayaa waxa dawladda ka xun iyo waxay dhaaftay iyo waxa haddii alla ka dhigayo in dee ay u baahantay. isaguna ha dhowto markuu meesha gaadho ee stebiskan iyo jarajaradan uu fuulo dee isagana toosh ku bahaya. marka tooshkaana inaynu iska hagaajino haddii ilaahay guushayda siiyo oo aynu kursiga hanano ayuunbaa muhiima. dhammaan waxaynu leenahay haddii alla ka dhigayo intayna halkan fadhida xisbiga taageeradiisa contributionka bixintiisa jeebkaynu gacanta gelino lacagtaynu hurro baashu marka lasoo saarayo way ku adkaataa jeebka. marka la gelinayo way fududtay laakiin marka laga soo saarayo way dhib badantay waayo naftaa tidhaahda ka daadiyay gacantay la hadashaa. marka waxaa loo baahanyay inaynu gacanta iyo jeebka iswaafajino. xisbiguna contribution la-aan ma soconayo dee faraandufa lahayn waxba ma duugaan baa layidhi. kursiga sidaa laguma gaadhantay. kursigana dee waxaa la doonayaa inay dad kursiga wada qaban maayaan oo madaxweynaha iyo in dawladdu wada shacabkan imika taageeraya maahee waxa weeyaan waxay noqonayaan dadku wixii ay doonayeen inay tabayeen inay ka helaan xisbigani markuu kursiga fuulo ee cadaalad leh. imika waxaynu nidhi barkhad xirsi batuul ninkaasu wuu dadaalay. midda kaleeto xisbigan wadani wuxuu jebiyey dayr adag oo aan hore loo jebin. dayrkaas waxa weeyaan dayr uu quursi badani ku jiray haybsooc ku jiray muxuu haaye yasidii ku jirtay. maanta waxa weeyaan mimbarka ugu sarreeya dee waa ka cagaftiisa inaynu cagafyada badino oo cagaftaa ina batuul aynu cagafyo badan ka dhigno oo aynu cadaaladda iyo sinaanta iyo wax wada qabsiga aynu ku jeexno. insha allahu tacaala waynu guulaysan. insha allahu tacaala halkaynu higsanayna iyo himaladeena waynu gaadhi. dawladeenna iyo maamulkeenna dee waa wax wanaagsan waa dawladeennii laakiin dee waa la beratamayaa. waa la beratamayaado dee kursiga waa lagu loolamaya. marka insha allahu tacaala waxaan leeyahay guusha aynu gaadhnay mid ka badan ilahayna gaadhsiiyo. higsigeenu ha rumoobo meeshaynu ku soconayno ee aynu arkayna inaynu dalkan wax ka bedelno oo aynu cadaaladda iyo waxa aynu ka cabanayn oo dhan aynu hagaajino. ilaahay dee hayna gaadhsiiyo. guushna allah haynagu sibo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ومهدسني هيداي حسين ديريه iminkana waxaan kusoo dhaweyn doonaa si aynu maamulka isu dhaafino yaxye cabdi aw cismaan oo ku hadli doona garabka dhalinyarada. halkaas aynu kasii socon doonaa insha allah. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meel shir sidan la isugu yimid oo lagu badayay oon ilaahay lagu soo hadal qaadin subxaana wa tacaala nabi maxamedna lagu saliin sala allahu alayhi wasalam shir maaha. kolley haddaan ku hadlo afka dhalinyarada xisbiga wadani oo shay waxaanu ka hadli doonaa insha allah uu afhayaanka xisbiga wadani jamaal cabdi ibraahim noo sheegay aanan hore uga wada shirnay inaanu de xisbiga guushu gaadhay inaanu kala qayb gallo oo wixii dhaqaale ah iyo taakuleynaba inaanu kala qayb gallo aananu diyaarna waan u nahay. ilaahi subxaana wa tacaala hanagu guuleeyo. waxa kale aan u dirayaa fariin madaxweynaha somaliland mudane muuse biixi cabdi iyo labada xisbi qaran faysal cali waraabe iyo
iyo cabdiraxmaan ciro guusha ay gaadhay somaliland sida ballaadhan ee waddamada caalamku iyo waddamada africa inagu xeeranba ay daawanayaan guusha waan ku hambalyeynayaa waxaanan usii hambalyeynayaa aada xisbiga waddani oo gaadhay guul aada iyo aada u ballaadhan oo dhalinyaradii waddanka kolley wax waliba waddan waliba markuu dhismayo wuxuu ka dhismaa dhalinyaro markaa dhalinyarada xisbiga waddani wuxuu hirgeliyey oo si caddaana loo arkaa inay dhalinyaradu gaadhay guul weyn kasoo hoysay sanadkan oy isqabsadeen gacmo isku qabsadeen si wacan ay garanaysaa ay isu taakulaysteen aada iyo aada baan xisbiga uga hambalyeynayaa aada iyo aada waxaan usoo dhaweynayaa dadkan xisbiga waddani ee ka kala yimi meelaha kala fog waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada magaalada Onshay annagoo kusoo waxaanan salaamayaa guddoomiyaha xisbiga iyo afhayeenkiisa hadalkana insha allah si tacaala waan ka baxayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waayay wuu mahadsan yahay yaxye oo ku hadlaya afka dhalinyarada laanta waddani ee xisbiga waddani waxaan sidoo kale kusoo dhaweynayaa xoghayihii hore ee laanta faransiiska iyo oday ka mid ah odayaasha iyo mustambeedka xisbiga axmed muuse kusoo dhawow baan leeyahay axmed muuse بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا waxaan maleynayaa de maraa inta badan dadka u dambeeyo hadalka waa dhamaaday wixii la odhan lahaa ilkeeda dhowr qodob baan isdul taagi doonaa inta badan guulo badan aynu gaadhnay waan wada dabaaldegaynaa haddana waxaa jira guulo aynaan weli isdareensiinin oo ah inaynu isxasuusino aynu isu sheegno ka xisbi ahaan horta maxaynu soo kordhinay xisbi ahaan maxaynu soo kordhinay waxaa jirtaa laba qodob oo aada iyo aada aniga kolley dhinacayga muhim ah xisbigan aan u arkay inuu muhim u yahaa oo marka koowaad xisbiyada waxaa lagu yaqaanay ninka u hadlaya ama qofka u hadlaya ama dadka u hadlaya ama dawlad ha noqdo ama mucaarad ha noqde saddex inay ahaayeen waa xilku hadal xinku hadal iyo xoolo ku hadal xinku hadal de waa nin la odhanayo wariya booskaaga xejiso hebel oo ka daba hadlaya xoolo ku hadalna waa mid wax loo soo dhiibay tii waynu bedelnay oo qodob baynu isugu soo ururinay waxaanu nidhi xaq ku hadal qofku de inuu xaqa ka hadlaa xisbigeena astaantaasu yeeshay markaa qodobka labaad xisbiyada waxaynu inta badan naqaanay ama mid mucaarada ha noqdo ama mid muxaafadahe in ama manfac loo galo ama mansab loo galo tiina xisbiga waddani wuu bedelay oo mabaadii baynu ka dhignay xisbi kasta inuu xisbiga qof kastoo xisbiga soo gelaya waddaniya qof kasta oo kamid ah xubnihiisa firfircoon inuu yahay qof mabda ku doortay xisbigan oo mabda kula shaqeynaya oo mabdaa ku joogaya aan mabdaana hadduu markaa dee mabdii ka waayo ka tegi kara taana xisbiga waa uu ku guulaystay qodob labaad xisbiga kulmiya aada wuxuu ugu celceliyaa doorasho waxaynu qabanay isku sidkano waa markii ugu horreysay haddii aynu masaajid u dhiibano imaam oo aynu ku nidhaahno salaadaha noo adin oo 3 salaadood adinkooda isla sugo horta maamaanba oo laba salaadood oo kamid oo inoo qabto amaan ma hawo malanaysa doorasho walba waqtigeeda qabtay amaan ahayd marka aynu waxaan leenahay maadinka labada salaadood mar loo wadaadibay u yahay xisbiga kulmiya mar labaadna waxaan leeyahay madaxweynaha xisbiga haddii uu doonayo sharafta iyo taageerada shacabku in ay siiyaan waxa weeyaa waa inuu doorashada waqtigeeda ku qabto mucaarad iyo muxaafadba waanu ku ammaanayna marka inuu waqtigeeda ku qabto aan waxba ku darin intaa marka laga tago xisbiga aada iyo aad labada nin cabdikariim muuge oo inta badan ay xisbiga waxa weeyaan sumaadkeenu hadalkooda ugu badnaa iyo barka shacbaatuun iyo weliba aan ku darsanayo habla somaliland oo isku dayay inay tartamaan oo iyaguna soo bixi waayo iyaduna ku cusbay doorashada barka baatuun iyo waxaan leeyahay nin kale cabdikariim muuge waxaad ogtiin baan u malinayaa taariikh horay raacayeen oo ay ku baraarugsanaayeen oo inayna mintaa inaan isweydiin barka baatuun shuuriya 1960 markii gobolka Maroodijeex laga dooranayay waana ku hambalyeynaa dadku waxa weeyaan maanta u soo baxay si hadallaan oo loo doorto waxa kaloo xasuusataa baan maleynayaa gobolka Maroodijeex 1964 nin aan ka mid ahay beelihii 1960 dastuurka loogu qoray inay Soomaaliland leeyihiin ayaa laga doortay waqti taasina waxa weeyaan in weligeedba gobolkan wax hormuud u noqda
والسومالنا وحي هرمود ذا باي مركو ورا تاجرته إيه كاسين السومدي لا لا تصدحات وقالوا صدحي اللي إحنا كي هذا عشر أو مربع نقطي حجبان ولا ديجان ويدنا وحوي تاريخنا وتفصيلنا وحوي هاي حبروه إن إيوه تاريخ وذات صورنا ولا تيميل جارا هذه وحنقصوا بالجبينية هذا في الصور بالجبينية أطلع فرحتنا جماعة يمكن أن نسوى ذا المرنو نسبرنو إنه وحوي وسوي تقولون وقت كده لا يمشي شغلي كل شيء هذا كسر شغل ولا دور من الصبح من اليوم لا قبل بالليل أنا هذا كنت أسوي سوق بالجبينية قرب الحاجة هذا حسب ده وحسب هديه بدون ناحية تحقيق مرق وقبته وحكي خلدني إنه صح إنه ما أنت وين ميالنا حدينا ما أنت يالنا إنه وحكون درسه دولي مسيحي كرنا وين مسيحي كرنا حسب جاي ميالنا وحنا كيالنا إنه وحنا إنه وقدر سنة وحنا إنه وقدر سنة وأنا إن سلام يا سلام الله waayahay wuu mahadsan yahay xafiye axmed muuse waxaan iminkana kusoo dhaweynayaa mid ka mid a odayaasha iyo mustambeedka xisbiga wadani garaad cabdiqani oo aan leeyahay kusoo dhawow garaad بسم الله الحمد لله رب العالمين إله يوم هذا والسلام يا دمان مرشرفت حفلتك الصوب وين كشيء دوميها مسؤولية كلا حسبك إيرلند وفرنسيسكا إله يوم هذا سلام الخورة وحي حفلتنا إن ندارنا سيدا عوام كلام شجعين إنه وديني في سوالنا أمرير وطني تورشدي دل كدعضي bal aynu ka falcelino wixii aynu arkaynay iyo sidii ay u dhacday waxay la tahay doorashadaasi waxay ahayd runtii doorasho ka duwanay doorashooyinkii hore dalka dhacay doorasho dadku ay runtii dareenkooda ay ka xamaasad badnay tii hore oo tii madaxweynehii aynu inagu galay 2017 aada uga xamaasad badnay waayo dadku isbedel aada u weyn gudoonayay golayaasha dalka oo muddo dhaaf fara badan 15 sannadood gaadhay ayay runtii dadku aada u dhibsaday golaha deegaanka iyo golaha wakiilada oo dadku doonayeen sharciyo wanaagsan iyo wajiyo cusub iyo nolol cusub in dalka loo sameeyo dad fikiraya oo cusub ay yimaadaan kii waxaan rumaysanahay xisbigan aynu ka soo jeednay inteena halka fadhida inuu ahaa xisbigii wax walba uga tanaasulay in doorashadan dalka dhacday dadka in badan ila soo xidhiidhaya guddoomiyaha aynu madaxweynaha u dooranayno lagu dhaliilayay inuu waxyaabo badan ka tanaasulay markaa oo ay shucuurta dadka xisbiga runtii danaynaya ay lahaayeen inuu arrintaa ka tanaasulo maaha inuu taa ka tanaasulo maaha inuu taa haddana umay muuqanin inaynu tan maanta waxaa la wada qirayaa maanta oo dib dadkii aan markaa xidhiidhinay ila soo wada hadleen in uu isagu guddoomiyuhu naga il dheeraa oo uu ku saxnaa inuu dalka doorashadan u qabto waa ogtii boqolkiiba 90 dadka iminka doorashada yimi dhalinyaro wey waxaa in badan lagu taamayay in dadkii waaweynaa ee u baahnaa inay maanta nastaan inay dadka weli u shaqaynayaan oo dabeedna ay kala horeeyaan shaqadan casriga imanka dadku doonayo iyo shaqadii waqtigaa dadkaas shaqayn jireen in different weyn u dhexeeyo shuruucdii dalka oo weli la iska haysto oo miiska iska yaalla in golaha wakiilada loo baahan yahay wax ka bedel lagu sameeyo runtii waynu ku guulaysanay xisbigu rajo wanaagsan buu keenay waynu ku hambalyeynaynaa runtii dadaalka dadka gudaha jooga ee uu guddoomiyaha xisbigu hogaaminayo inay runtii diirogeliyeen somaliland oo dhan halkudhigii ahaa xisbigii ahaa somaliland la wada leeyay baynu doonaynaa dee waa ogtiino xisbiga qura aynu kasoo jeednaa waa ka keenay somaliland taa la wada leeyay hawiya dee waxaynu dhahnaa koonfur baynu naqaanaa marka dee ama
somaliland bay nala degiin waa kuwa xisbiga kasoo baxeen waa ka gabooyo aan weli kasoo bixin intii iminka 30 sannadood aynu doorashada wadnaan galaa wakiiladaynu koontayda dee waxaynaan garanayn aan cod aqlabiyada kusoo bixin dee waynagan kulligeen xuseyno barkadeen xuseen macnihii wuxuu muujinaysaa waxaasoo dhan waxay muujinaysaa somalilantii la wada leeyay inaynu inagu raadkeedii hayno xisbi ahaan waxaan rajaynayaa doorashada soo socotana inaynu dariiqiisi aynu samayn doono somalilantii iminka yacni fartaada dhexda ka qaniinaya hadaladii cuyubnaa iyo waxyaabihii muuse lagu xaminayay axmed baa la kaftamaya qolada ila soo hadasha had iyo jeer waxay u yidhaahdaan abtiyaasha baa keenay dee kursigane jini haa waxaan runtii kaga jawaabayaa nimankaa abtiyaasha dee maanta xisbigii kulmiyey ee tacabkoodii iyo tamartoodii ay ku dhammaatay 12 xildhibaan inay kala soo baxaan xisbiyadii mucaaradka oo xisbigii dhammaan kulmiye loola jiray ka guureen oo doonayaan dadka inay isbedel dambe u sameeyaan oo jinigii ay keeneen inay saaraan halkaas ka muuqato isbahaysiga maanta dee quwadda leh golaha wakiilada dhisaya xudurta ugu weyn bay ka yimid runtii isbedelkaa waxaynu u baahanay inaynu soo wada dhaweyno dareenkaa shacabka inaynu soo wada dhaweyno halkaa loo socdo inaynu ummadda kusoo wada jahayno somaliland inaanay naga xumaanin oo inoo qurux badnaato ayaynu u baahanay madaxweynaha waynu ku hambaliyeynaynaa doorashadii maalintii dhaweyto oo uu qabtay oo dhaqaalaheedii in badan laynagaga baxay oo uu ku dhiiriday oo commissionkaa runtii sidii niyaddeenna ku jirtay commissionka ay runtii si ka duwan aynu aragnay iyagana waynu ku hambaliyeynaynaa doorashooyinka soo socdana taateedii baynu ka doonaynaa weli qalbigeenna waxaa ku jira commissionka inay wax ku laabayin haddii ay doorashooyinka soo socda ay naga saaraan waxaabaynu odhanaynaa weligoodba haynoo joogaan ha lagu celceliyo laakiin haddii ay noqoto sidii africa oo kursiga madaxweynahana commissionku wuu ku ilaalinaya wuxuu doonaabuu samaynaya ta kale shacabka dadka iyo ardaayadu ay dooranayaana way kala ilaalinayaan taa ka yeelmayno madaxweynaha waxaynu leenahay xilligii doorashadan kaa doonaynaa ururada furisteeda madaxweynenimada ka horeysa si aan carqalad dalku u qabanin doorashooyinkii oo xilligoodii ku qabsooma ayaa somaliland ku qurux badnaanaysa oo dimuquraadiyadeenu ay ku hana qaadaysa sidaasaynu inagu aynu doonaynaa inaynu dabeedna somaliland inagu wada qurux badnaato oo qalbiyada dadku ay sidaa ku hantaan aada iyo aad baan u hambalaynayaa mar labaad iyo mar saddexaad xisbiga iyo dareenkan uu guud ee uu dalka kusoo hagoogay aada iyo aad baan u hambalaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu way uu mahadsan yahay oday cabdiqani garaad waxaan iminkana kusoo dhaweynayaa inagoo kusii siqayna gebagabadii guddoomiyaha laanta faransiiska ee xisbiga wadani maxamed cismaan abukor kusoo dhawoobaan gudoomiye بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتين وحن السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بارك الله بعد وحن إذا كم هالنقيا وتسلا كل كين نتوجبتين حاليا كره لقلي يا وحواري هاي تكنيكي هاي نويني دبنا ويرا دقاي انت عمل في قدبو كل كنا نوفق دارنا إنه وهم بليينو لما نرتاح جودها بشعب السومالي لان قال هانا وش حسبي المعارض كهاي قالين السومالي لان دم بوه بوليستي قولش أنا شعب كاسكله شعب كوع ذي يسبدل وحن كلا عن وهم بليين يا كمش كي قرنكه الدور شذا فين بنوقتي نبغى كسوينا doorashooyinka soo socda ee saddexdaana inay sidaas in leeg inoogu qaban doonaan oo ay inoo qaban doonaan doorashooyin xor iyo xalaala intaa markaan kasoo gudbo innaga ka qurba joog ahaan waxaanu ka tirsannahay lafdhabarta uu ku tiirsan yahay xisbiga wadani waana intuu dheer yahay xisbiyada kale waa ogtihiinoo 2012 markii la furay ururada
xisbiga wadani ururadii mar lala furay wuxuu kaga dheereeyey maantana uu heerka kusoo gaadhay waa qurba joogta weeyaan taageerta marka waxaan idinku boorinayaa inaad horta halkii aynu kasii wadno innaga conferences ahaan de iminka sida maqlayseen doraato kale guddoomiyaha cabdiraxmaan maxamed abdullahi cero hadlayay wanka UK baa ku jirta toogana USA America iyo Ingiriiska dee bal inagu sanadka inaynu kor isu soo qaadno aynu kaalmaha hore bal haddayna xitaa saddexaad imaan inaynu ka afraadin xisbiga aynu soo galno haddii ilahay ka dhigo dee waana mahadsantii dhammaantiinba kulle hadalka wuu mahadsan yahay guddoomiyuhu kolley isagaa inoo soo gabagabeeya